السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo Maxamuud cashkan waxaanu ku qaadanaynaa 10kan erey meesha noo saaran ereyga koowaad viol waxa la yiraahdaa dhala yar adigu bottle bay isku macno noqonayaan inkastoo bottle ay dhala walba weyn la dhihi karo viol waxa la yiraahdaa dhalada yar ee ay ku jiraan daawooyinka saale daawada malaariyada ee la qasayo ama daawada ceftriaxone laftirkeeda dhala yar bay ku jirtaa oo ayadoo budo ah kadib baa maxaa hayday biyo lagu daraa waa lagu qasaa qofka kadib baa cirbada lagu siiyaa dhaladaas yartay daawada ku jirtaa la yiraahdaa viol waa small glass waxaana loo isticmaalaa in la geliyo yani daawooyinka medicine yes ereyga labaad waa vineyard waxaa la yiraahdaa beer ay ka baxaan cinabka yes a farm where there are a lot of grapevines to make them wine yes waa beer ay ka baxaan cinabka inta badan waxa la yiraahdaa grapes okay inta badan waxa laga hagaajiyaa qamradii waxyaalaha noocaas yes warring waxa way dagaal okay waa warring yes dagaal fighting bay isku macno yihiin the warring nation signed a peace treaty wadamadiis dagaalayay waxay saxeen heshiis yes window sill waxa la yiraahdaa yani iskafaala yar oo inta badan daaqada hoosteeda ku yaalo oo wax la saarto yes waa shelf yar oo at the bottom of the window qaybta hore daaqada ku yaalo deedna waxa lagu talagalay in wax la saarto yes for example waxaan dhahayaa the cat sat on the window sill watching the birds and shimbirtu waxay ku fariisatay daaqada xageeda hoose si ay u daawato shimbiraha yani bisad yes the cat ereyga shanaad wuu waa murugo yes waxa isku macno noqonaya sadness ama grief waa murugo yes his heart was full of woe after the loss yani qalbigiisa muruga asqaysay kadib markuu ka dhintay yani after a loss maybe they lost something or something like that qof baa ka dhintay waxyaalaha noocaas yoga waa nooc kamid ah exercise-ka ee lagu talagalay qofka jirkiisa inuu ku jimicsado yani deedna uu maskaxdiisa dejiyo meditation waxyaalaha noocaas bay la mid tahay qofka wuu jimicsanayaa jirkiisu kala baxsanayaa maskaxdiisu dejinayaa neef buu qaadanayaa wuu soo celinayaa ciyaarta noocaas la yiraahdaa yoga ereyga toddobaad battered waa qofkii inuu wax burburiyo yes yani they damage for example he carried a battered old suitcase wuxuu watay boorso aad u weyn oo aad u burbursan ama aad u jajabsan yes battered marka waa wax markay aad u jajabsan yihiin ama duqow dartood ha u jajabaan ama qof ka saawu istaago yes ereyga sideedaad bottle bank waa meel lagu talagalay caagadaha lagu sameeyo recycle-ka lagu kaydiyo yes meel weyn oo lagu talagalay in lagu kaydiyo caagadaha magaalada laga soo arooriyay ee recycle-ka lagu sameeyo yes ereyga sagaalaad cuddly ereygan wuxuu la mid yahay ereyga cuddle waa qofka inaad si maxabo leh si galgacayl leh laabta u gelisid yes ama hooyo canugeeda laabta gelinaysa ha ahaato ama nin xaaskiisa laabta gelinayo soo galgacayl u tusaa ahaato cuddle iyo cuddly waa isku mid yes waa laab gelintaas si qofka galgacayl iyo intimacy iyo jacayl loo tuso yes ereyga tobanaad hibernation waa nooc kamid ah hurdada waa inta badan xayawaanada ay galaan tusaale xaaska waxaa lagu leeyahay markuu wabiga guro ciidu iska hoos galaa halkaa buu ku hoos jiraa in muddo ah hadhowti markuu wabiga soo laabto wuu soo noolaadaa xayawaan kaloo la mid waxaa waaye raha the frogs also xayawaano kaloo fara badan sida bears ayagana they go into hibernation waa xaalad yani adigu qofkii inuu waxaa waaye isdhul dhigo intii maaragtay cimilo uu ku noolaan kara ay ka soo laabanayso istaaba la yiraahdaa hibernation ashka intaas ayuu keegay keep